agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa maanta tababar uga furay Hotel Imperial ee magaalada Hargeysa maamulayaasha cashuuraha bariga ee gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo ay mas'uuliyiintaasi qaadanayeen tababar ku saabsan xeerka dakhliga cashuuraha bariga ee xeer number 27/2016 iyadoo ay tababarkaasi qabanayeen waaxda cashuuraha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha ku-xigeenka waaxda cashuuraha bariga Khadar Maxamed iyo sidoo kale agaasimaha waaxda shaqaalaha Maxamed Axmed agaasimaha waaxda cashuuraha Marwo Hiba Quuleed waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxa la isugu keen yeeray saddex qodob oo muhiim ah runtii waxa weeyaan lacag u meen ururnaa lacag ururinta waxa ka muhiimsan qofku inuu wax barto oo aqoon yeesho ka muhiimsan weeyaan sharcigii shaqaalaha oo maanta la inagu tababarayo oo waaxda maxaan ku dhahday shaqaalo waaxda shuruucda inagu tababarayso hibaaq iyo sharcigii kale sharcigii cashuuraha iyo sharcigii shaqaalaha oo inagu tababari doono insha Allah ta'ala waa tababarka sharciga shuruucda cashuuraha law number 72 iyo sharciga anshaxa shaqaalaha xeer hoosaadka wasaaradda maaliyadda iyo appraisal formkii oo mar labaad lidinku celin doono isagoo af Soomaali ah kan aynu maanta wadnaa wuxuu ka mid yahay ama uu daba socdaa kuwii hore waxa weeyaan xeerkii cashuuraha bariga xeerka dakhliga waa xeer ballaaran waxaynu u baahanahay si ay u socoto ama ay u midho dhasho waxyaabaha reformka aynu wadno ka wasaarad maaliyad ahaan in ay shaqaaluhu ama muxuu hayteen maamulayaasha xafiisyada kala duwan ee labada dakhliga hadii ay tahay cashuuraha bariga haday kastamada tahayba muxuu haytay ay bartaan in ay ku shaqeeyaan shuruucda kala duwan ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ay leedahay ugu dambeyn waxa tababarkaasi furay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan farsamaha waxa la faahfaahiyay ujeedada kulankan maanta aynu gobolada iyo degmooyinka iskaga nimid waxay daba socotaay oo kaliya si guud waxaynu ognahay dadaalada aynu ku jirno sidii aynu u casriyeyn lahayn nidaamka maamulka cashuuraha iyo nidaamka maamulka maaliyadda guud ahaanba waxyaabaha aynu hore u soo qabanay hadii dib isku xasuusino ee aynu ugu talagalnay in aynu dakhligana kor ugu qaadno cashuur bixiyaasheenana aynu adeega aynu siinayno ku wanaajino waxaynu ka soo bilownay bilowgii inaynu habayno nidaamka diiwaangelinta cashuur bixiyaha cashuur bixiye kasta maanta bayska waxa loogu dhigay inuu yeesho sumad u gaar ah oo kaga duwanaanayo dhammaan cashuur bixiyaasha kale oo runtii ah horumar weyn oo aynu wasaarad ahaan iyo gaar ahaan waax ahaan aynu samaynay inaynu cashuur bixiye kasta sumad aan lumayn inaynu u samayno waa qodobada rukunka u ah dib u habaynta cashuuraha waxyaabaha kale ee runtii aynu ku dadaalay aynu dhamaystirnay waxa kamid ahaa in aynu la nimid foomamkan xisaab celinta iyo cashuur bixinta oo aynu adeegsanayno foomamkii ugu dambeeyay amba foomamka adduunka uu isticmaalo oo koobsanayo xogtii looga baahnaa cashuur bixiye iyo wasaaradda iyo cashuuraha bariga ay u baahnaayeen oo dhan xambaarsan foomamka waynu dhamaystirnay waa la isku tababaray waa la qaybiyay waa lagu dhaqmay waxa kale oo inoo la socday inaynu samaynay waa ay cashuur bixiyaasha waaweyn segmentation of our customers yani inaynu kala garanno oo aynu ogaano cashuur bixiyaasheena kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe iyo kuwa yaryar waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan waxa kamid ah in soo kordhinay inaynu cashuur bixiyaasha iyo dakhli kordhinta si aynu u dhamaystirno aynu adeegsiga tiknoolajiyada ee xagga sistamyada aynu aad u xoojinay waxay loogu xigay oo kale aynu dhamaystirnay inaynu si fudud cashuur bixiyuhu isagoon traffic jam soo gelin amba isagoon safar dheer soo gelin amba isagoon kharash ka bixin in uu nidaamkii online ka ahaa ee maalmihii u dambeeyay ganacsatada lagu tababarayay in cashuur bixiyuhu halkiisa uu cashuurta xogtii cashuurta uu ka soo gelin karo si uu ugu bixiyo isagoo xafiiskiisa fadhiya waxyaabaha kale ee aan la hilmaami karin amba aan la ilaawi karin ee la tahay in la xuso waxa kamid ah
in aynu dhammaystirnay nidaamka cashuur bixinta ee la adeegsanayo adeegyada mobileska ee zaadka iyo e-dahabka oo cashuur bixiyuhu uu ka maarmayo in uu soo sarrifo lacagtii cali qamaacad telefishinka oo cable Hargeysa. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobillo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung, dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash ah. wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333